عروري وعرول تكفو ودعودان midnaan caynayne oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sidii caadiga noo ahayd oo galab walba aan soo gudbin jirnay warbixinada noogu dambeeyay maalinlaha maanta waxay tahay taariikhda bisha 7 bisha 12aad 2021 oo ah maalinta 15aad ee shaqadeena iyo ololihii caafimaadka degmada Baardheere barnaamijka caafimaadka ka wadnay degmada Baardheere ee ay caawinayso dadweynaha Soomaaliyeed reer Baardheere hay'adda Fadhi Gargaar maanta oo ahayd maalinta 15aad ayaan rabaa waxyaalihi aan la kulanay inaan la wadaago dadweynaha Soomaaliyeed meel bay joogaanba maanta guud ahaan waxaan la kulanay 103 qof 9 qof oo bukaan socda iyo 13 qof oo bukaan jiif ah ayaan la kulanay maanta shaqadu maanta waa yar badan waa dareemaysan maalmihii la soo dhaafay waxay 9 iyo 80 iyo 70 iyo 50 iyo tiro noocaas kale aan ku soo jirnay maanta waxaan la kulanay 103 qof oo ay tahay 9 qof bukaan socod 13 qofna ay yihiin bukaan jiif kunti maanta shaqadu waxay ahayd maalin yaraa saxmadeed intaasaan maanta la kulanay guud ahaan insha Allah taala waxaan sii joogtayn doonaa haddii alla idmo oo aan sii wadi doonaa barnaamijkeena caafimaad muddadii aan ballan qaadnay maanta waxaan mareynaa kala baraheeda guud ahaan dadka aan la kulanay 15 kaas bari waxay noqonayaan 1229 shalay waxaan mareynay 1126 marka lagu daro 103 waxay noqonayaan 1229 almost waxaan ku dhownahay 1500 maalinta 15aad waxaan rajaynaa 15 biro socdo haddii alla idmo inaan ayadana ugu yaraan la kulano 1500 oo kale ama ugu badnaan 2000 oo qof oo kaleeto guud ahaan waxaan rajaynaa markii barnaamijkan uu dhammaado dad 3000 iyo qadar ama 4000 oo qof ku dhow bukaana oo isugu jira daaweyn iyo qaliino kala duwan iyo bukaan jiif iyo bukaan socodba inaanu la u adeegnay insha Allah taala oo gaarsiinay adeegii caafimaadka ugu talagalnay bishaas sidii aan dadweynaha Soomaaliyeed ugu soo warbixinta ugu gudbin jirnay baan 15 maalmood soo socotana haddii alla idmo gudbin doonaa waxaan isku daynaa anoo ku saabsan tabartayada iyo adeegayaga iyo baahida caafimaad ee Baardheere ka jirta inaan sii shaqeyno haddii alla idmo 15 biro nagu soo aadan haddii alla idmo 15 biro soo socota markaan shaqada dhammayno oo naga dhamaato dadweynaha Soomaaliyeed meel joogan waxaan la wadaagi doonaa warbixin dhammaystiran oo ku saabsan bishii halka joognay wixii aan qabanay annagoo waliba report dheeri ah oo waxyaalo badan hadda dadka aan u soo bandhigi doono report-da waxaan ballan qaadaynaa insha Allah taala inaan la soo wadaagno dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan wixii aan la kulanay bishii oo dhan caqabadihiina qabsaday shaqada intaan ku jirnay baahiyaha caafimaad intay leeyihiin dadkii aan la kulanay oo u qaybin doono gurubyo iyo kooxo iyo xanuunada ugu badan ee ay ka cabanayaan dadweynaha reer Baardheere caruur intaan la kulanay haween intaan la kulanay intii la qalay intii dhiig lagu shubay intii la jiifiyay intii xaaladooda aad kay u darnayd report saas oo kale ayaan la wadaagi doonaa annagoo u kala qaybinaynaa caruur haween rag iyo maxaan ku dhahay xanuunada commonka ah oo inta badan ay qabaan dadweynaha reer Baardheere report buuxo oo noocaas oo dhan uu warbixinayo ayaan la wadaagi doonaa markaan warbixinta markaan dhammeeyno shaqada tan report dhammaystiran insha Allah taala oo ka warramaya 30 maalmood oo shaqeynay iyo shaqadii aan qabanay iyo tala bixintayada ayaan insha Allah taala la wadaagi doonaa dadweynaha Soomaaliyeed meel bay joogaan shaqada markay naga dhamaato aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan u baahanahay garab istaag dadweynaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa in loo adeego dadkaas reer Baardheere iyo dadweynaha Soomaaliyeed kastoo dhibanoona haysan adeeg caafimaad insha Allah taala waxaan idin rajaynayaa dhammaantiinba khayr haddii alla idin